waxyaabo markaad xajka xidhatid aad iska ilaalinayso waa 9 qodob 9ka qodob baad qabsanaysaa intaad xaj ama umra ku jirto 9ka qodob iska ilaali koow mar haddaad xajkii xidhatay oo haddii ilaahay kuu roon yahay uu kuu xidhan yahay ama umradii aad xidhatay oo aad tiraahdo ilaahu xaj baan kuu xidhay ama umraan kuu xidhay 9ka qodob baad iska ilaalinaysaa qaarkood haddaad ku dhacdo kafaara gud fidya laga rabaa haddaad qaarkood ku dhacdo aad bixinaysaa qaarna fidya ma laha koow lubsul makhiit inaad xidhato dhar tolan dharkan gacmaha leh oo lugaha iyo gacmaha iyo lagu sameeyay sida shaararka sida garamada nigisyada funaanadaha koofiyadaha macawisaha waxaasoo dhan khamsaanta saraawiisha waxaasoo dhan mar haddaad xidhatay ma xidhan kartid waa ninkii baa laga hadlaya la socmaha gabadhi ila waxyaabahan iska ilaalinaya qaarna raggay gaar ku yihiin qaarna rag dumarkay gaar ku yihiin qaarna ragga iyo dumarka waa ka dhaxeeya 9ka qodob marka waa inaad haddaad nin tahay iska ilaalisaa laakiin dumarku iyagu maryahooda caadiga bay xidhanayaan labo masu tiib qodobka raggu gaar ku yahay labo masu tiib inaad maxay aad cadar marsato markaad xidhatay ka bacdi marka aad xidhanayso xajka ka hor inaad cadar marsato waa lagu ogolay hadduu kaa soo carfo kaa soo udgo dhib ma leh laakiin mid baan dadku ku baraarugsaneen inta badan oo iyagoo xajkii isu diyaarinaya markay maydhaan oo cadarkii marsadaan ayay maryihii cadcadaabay cadarkii ku shubayaan waa qalad waa inaad maydho ama marada bedeshid laakiin cadarkaad jidhkaaga marisay haddii maradii markaad xidhato uu ku bo'o ama ka soo udgo wax dhibaato ah ma leh inaadse ku shubtaa la diidaya marada ama cadarkii barafuunkii ku buufiso ayaa la diidaya marka qodobkaasi waa qodobka labaad oo maxay ah masu tiib rag iyo dumar waa ka dhaxeeya ka marka midna lama ogola inay cadarkii marsadaan markay xidhaan ka bacdi saddex aljimaacu wa dawaaciih galmada iyo wixii galmada khuseeya ee u yeedhaya asaawaha ka horeeya taataabashada iyo dhunkashada iyo tuutuujinta iyo hawsha weyn ee farasaarka ah intaasba haddii aad la timaadid waxa weeyaan xajkaagina waa buray haddii aan la idmaayo toobadkeen iyo istighfaarna waa lagaa rabaa neef geela waad gowracaysaa hawsha inta dhimanna waad dhammaystiraysaa waadna soo qallaynaysaa imse qodob baad haysaa afar alxalqu wataqsiir adoo xajkii kuu xidhan yahay ama cumradii intii aan la gaadhin tima goosashadii timihii inaad goosato oo garkaagii ama madaxaagii tima ka goyso iyaduna waxa weeye haddaan cillad sababaysa aanay keenin hadday cillad sababtaa keentaana waa dakhar baa kugu dhacay maalan dee dakhar hadduu kugu dhacayo meeshii la xiiro oo markaa la tolayo wax dhiba ma laha laakiin haddii kale lama ogola timihiiyo garkii in la jaro adigoo maydhanaya ama weysaysanaya xabatina kaa soo go'day wax dhiba ma leh taasina waxa weeye iyaduna lama ogola xalqu wataqsiir wa qatci aladaafir iyo maxay cidiyaha goyntooda cidiyahana ma goyn kartid timahaagana ma jari kartid uma liyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbayti alcatiiq alla waatuu lahaa marka ha iska zuuliyeen wasaqda iyo wixii qurunka ah waa timihii iyo cidiyihii iyo waxaasi waa marka qofku xalaaloobayo qodobka shanaad wuxuu gaar ku yahay isagana waxa weeye qodobkaasi waa cadamu satri alwajhi waalra's inaa madaxaaga mara ma saari kartid wejigaaga mara ma saari kartid xitaa marka aad maxay aad jiifsanayso xitaa lama ogola qodobka lixaad annikaax waalkhitba waa guurkii iyo doonistii ma guursan kartid mana guurin kartid ma bixin kartid ma wakiilan kartid laguma wakiilan karo intaad xaajiga tahay haddaad samaysid oo adoo xajkii xidhan ama cumradii xidhan gabadh lagu siiyo lagugu meheriyo ku mehersami mayso haddaad gabadhaadii bixisana ma mehersamayso xitaa ma bixin kartid lama ogol mana guurin kartid mana guursan kartid labadaba intaad ilaahay cibaadadiisa u jilb xidhantay subxaanahu wa tacaala waayahay cid kalena wakiil kama noqon kartid meherkaasina maba xidhmayaba xitaa maba guntamayso haddii xitaa wadaadkii la keeno laysku meheriyo ma guntamayso xitaa ma mehersamayso imisaad haysaa lix qodobka toddobaad alistiyaad
ma ugaadhsan kartid ugaadha berriga ma ugaadhsan kartid xitaa ma didin kartid dadka qaar baa arkaysa meesha qoollayda bahasha leedahay xamaamtaa iska buuxdoo joogta marka dadka qaar baa intay didiyaan ku orda ama didiyo oo isku sawira oo markaa u jeeda in maxaaratay shimbiraha duulduulaya dadkan aqoonta aad ugu lahayn marka in xitaa la didiyo lama ogola in la ugaadhsado warkeeda badaa qodobka sideedaad qatcu ashjaari alxaram xaramka dhirtiisa ma goyn kartid xaramka dhirtiisu waa laba nooc dhir alla soo saar ah oo ilaahay soo saaray oo dees ka soo baxday ilaa hadda dhirteenna inagu qaarna ilaahay baa soo saaray qaarna soomaha innagaa beerna marka dhirta alla soo saarka ah ee aan dadku beerin ma goyn kartid oo lama ogola laakiin dhirta la beeray ee ay beereen waa la jari karaa wax dhiba ma leh waxaad arkaysaa dowladda hoose markaad tagtid xaramka oo kale oo dhirtii waddooyinka ku taallay gaagaabinayso qusaynayso oo waraabinayso oo xaadhayso ka shaqaynayso marka dhirta la beeray iyadu dhib ma laha laakiin dhirta aan la beerin ee alla soo saarka ah lama ogola sagaalkaa qodob baad iska ilaalinaysaa haddaba qofka ku dhaca waxyaabahaas ee laysu diiday sagaalka ah haddii uu kas u sameeyana dembi iyo kafaara gud baa laga rabaa dembi iyo fidya laga rabaa haddii uu haddii aalaidma cudurdaar daraaddii u sameeyo oo dan iyo duruufi ku kalifto iyaduna waxaa laga rabaa dembi dushiisa maaha laakiin fidyuu bixinaya hadduu halmaan u sameeyo iyo jahlina fuqahadu waxay leeyihiin qaarkood iyo qowlka fiicane adagba waxba qofkaasi la odhan maayo maadaama uu jaahil waxa kan ka ahaa ama uu halmaan u sameeyey ayay leeyihiin ama uu halmaan qofkaasi u sameeyey fidyadu maxay noqonaysaa afar qodob oo sagaalka aynu sheegnay ka mid ah calaamadso afartaa qodob fidya ka waajibaysa kow lubsulmakhiid haddii qofku isagoo xaj iyo cumro xidhan waa ninkii uu xidho maradan haddii aan la idmaayo maryaha caadiga ee aan sheegayna hadda ee la xidho hadduu xidho iyo hadduu cadar marsado waa labo haddii madaxiisa uu dado waa saddex hadduu timihii jaro ama gaabiyo ama ciddiyaha iska jaro afartaas sagaalka ka mid ah hadduu qofku sameeyo waxaa laga rabaa kafaara gud baa laga rabaa kafaara gudkiisu muxuu noqonayaa neef ariya inuu qalo baa laga rabaa oo neefkaa intuu iibiyo uu qalo makaan lagu qalaya oo lagu gowracaya ma aha waddankii inuu odhanayo ha lagu soo gowraco ama markaan waddanka tagaan qalaya ma aha waad iibinaysaa makaan lagu gowracaya hilibkiisa hortaada haddii lagu bisleeyo afkaa ma saaraysid waayo waa wax ganaax adiga lagu ganaaxay weeye dadka fuqarada ee reer maka ayaa loo qaybinayaa hadduu awoodi waayo 6 miskiin ayuu haddii aan la idmaayo uu quudinayaa 6 miskiin buu siinayaa miskiin kasta nisfa saac buu bixinayaa masaakiin buu quudinayaa hadduu awoodi waayo 3 cishuu soomaya hadduu awoodi waayo 3 cisho inuu soomo ayaa laga rabaa oo soonkaas uu si fiican u guto ugaadha hadduu dilo waa la qiimaynaya iyadu waa xukun gaara waa la qiimaynayaa neefka uu dilay neef u dhigma ayaa laga rabaa inuu bixiyo waa fahamtay soo maa maalan neef geelu ugaadhsaday waxaa la odhanayaa neef waxaan u jeedaa goroyo ayuu ugaadhsaday neef geeluu bixinaya sagaaro iyo wax la miduu ugaadhsaday neef adhiyuu bixinaya waa la qiimaynayaa wixii qiimayn leh oo neef u dhigma ayaa maaragta uma bixinaya wixii kalena waxa uu dilay inta la qiimeeyo ayaa loo bedelayaa markaa raashin uu bixiyo ama wuxuu soomayaa tiradooda oo maalmo ah oo aad u tiro badan dee ayuu soomayaa intii ka soo hadhay 5 qodob wixii ka soo haray oo nikaaxii iyo maxaan ku idhaahdaa qodobada aynu sheegayna dhirtaa hadduu xaramka wax ka jaro iyo hadduu gabar guuriyo ama guursado iyo waxyaabaha caynkaas oo kale ah wixii ka soo hara jimaacuna waa xukun gaara isaguna waa qodobka 6aad isaguna waa xukun gaar oo dee qofku xajkina waa buray laga rabaa dee waa ka isagu waa ka gaar waa ka sii culus 6daa qodob waa saas 3 qodob ee soo haray iyagu hadduu nikaax sameeyo iyo dhirta hadduu wax ka gooyo iyo waxyaabaha saas oo kale iyagu wax maxaan ku raahdaa fidyo uu bixinaya male laakiin istighfaar iyo dambi dhaaf alle inuu weydiisto baa wanaagsan weeyaan qodobada aynu sheegnay waa xajkii arkaantiisii shuruudiisii mubdilaadkiisii
waxyaabihii maxaan ku maxduuraadkiisii wixii ka dhaazimaya baanu sheegnay waa muhim jiddan qofka xajinaya cumraysanaya qodobada inuu ogaado si cibaado rasmi ah u sameeyo